waxay daliil u tahay SIU harqaadkeeda iyo meesha u socoto iyo mustaqbalkeeda soo soo ifay sababaha ugu weyn oo alumniga loo dhisay waxa weeyaan establishment-ka jaamacadda in la sii xoojiyo markastoo aad qalin jebisaan waxaad ogtihiin inaad hay'ado kala duwan iyo filiyaal kala duwan aad gelaysaan dada leadership galaya dada caafimaadka galaya dada businesska iyo ganacsiga saameyn ku yeelan doona marka dadka halkan si ay soogu hayaan oo la isku yaqaan SIU inaad ka qalin jebiseen alumnigan wuxuu leeyahay the best meesha ugu habbooneyd maaragtay insha allahu tacaala arrintaas hanqaadkeed qayb ka noqon lahay arrintaas ka sukow doorashada iyo sida u dhacayso iyo shuruudaha albaabka marka la xiri doono wareegyadu say yihiin shuruucda waxaasoo dhan waxaa idiin sheegi doona guddiga doorashada arrintaa u qaabilsan laakiin maadaama anigaan ahay guddiga guddoomiyaha guud ee jaamacadda u xilsaartay dhismaha alumniga waxaan rabaa inaan idiin sheego in ilaahay yidhaahdo maanta maalin weyn idiin tahay mustaqbalka alumniga jaamacadda SIU maanta go-aan ka gaaraysaan sababtana waxa weeyaan institutionska ama associationska hadda idinka associationada tihiin bilowgooda ayaa saameynta ugu weyn ku leh qofka bilowga qabta hadduu noqdo hoggaan fiican oo saldhig fiican u sameeyo institutionkan ama associationkan marka dambe dadka iman doona oo ka dambeyn doona waxay noqon doonaa dad wadadaa lasii falay ka faa'iidaysta oo cultureka iyo dhaqanka samaysmay qayb ka noqon laakiin qofkaasi haddii uu socodsiin waayo ama ay caqabado ay soo hor istaagaan waxa weeyaan waa caqabad kale marka waxaan kula talinayaa aniga nuxurka waxay tahay qofka aad dooranayso waxaa ku dooranayso go-aankaadaas kale laakiin markas inaad ka fiirisaan perspectiveka qofka kartida iyo leadershipka iyo meritocracy iyo kartidu inaad dhinacaad ka fiirisaan taas ka sugo intaa markaan kaga taga taas waxaan rabaa halkan on behalf of the university anoo magaca jaamacadda ku hadlayo oo maadaama ahay guddoomiyihii guddiga loo xilsaaray dhismaha alumniga caleemasaar horta wuxuu dhici doonaa insha allah hadduu ilaahay yidhahdo 7 February timeline sida ku jirta khamiiseedu dhacay hadduu ilaahay yidhahdo which means jaamacaddu inay diyaar u tahay hoggaankaa soo baxa in la garab istaago dhaqaale xafiis wax kasoo suurtagal alumniga lagu dhisi karo la asaasi karo markaana taa xisaabta ku darso insha allah hadduu ilaahay yidhahdo in jaamacadda waxa qabadahayd idin ka imanaynin ay diyaar u tahay insha allahu tacaala in xanaqaadka iyo korukaca associationkan maanta samaysmaya oo garab muhiim ah oo jaamacadda kusoo biiraa inay qayb weyn ay ka qaadato taas markaan intaa kaga tago maanta doorashaan gelaynaa doorasho markaan gelaynan mas-uuliyadaan u baahnaa mas-uuliyadaan u baahna weyn waxaa ka mid ah habsan u socodka inaad ilaalisaan protocol teamaa jira waxaa jira guddiga doorashadaa jira laakiin ashkaasta intan fadhida attitude-kooda ama qaabdhaqamoodkooda ka asarsan waxaasoo dhan ka soo qaad haddaad khalad cad aragto lagu jiro shaqadaada ma islam iyo business waxaa la rabaa inaad u qaadato aad muujiso islaanshin aad muujiso maxaa yeelay meesha hadda aad joogtaan waa level jaamacadaha ka kala jeebisaan ama levelka leadershipka hoggaanka lagu qabanayo marka taasaan ka codsanayna inaad la shaqaysaan insha allahu tacaala hadduu la yidhaahdo guddigana wuxuu ballan qaadi doonaa insha allah the most fair and justice way in ay u dhacdo doorashada insha allahu tacaala hadduu la yidhaahdo shuruudahana waxay noo sheegi doonaa guddiga ay noo sheegi doonaa marka maalin wanaagsan aan wada qaadan doonaa insha allah hadduu la yidhaahdo soo dhawaada intaad soo xaadirteen oo waqtigiina soo hogteen aad iyo aad aad mahadsantihiin ownershipka idinkaa iskale wasalaamu calaykum waraxmat injineerada dhaqaalayahanada looyarada iyo dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta oo ay tahay taariikhdu 31 bisha koowaad 2019 waxaan marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa inuu noo suurtogeliyey inaanu kusoo xaadirno hoolka jaamacadda SIU oo ah gurigii aad kusoo hanaqaadeen oo aad ku naqateen maanta qiimaha iyo shaksiyadda aad leedihiin inaanu mar kale idinku soo dhaweyno annagana ilaahay noo suurtogeliyey inaanu sameyno programka noocadaani ah oo aad doorashadan aad noo soo qayb gashaan marka xiga waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa xafiiska relationka dhammaan shaqaalihiisa iyo macalimiintiisa oo isku duuban oo dabcan xil badan iska saaray habsan u socodka iyo qabsoomidda electionka maanta ka dhacaya hoolka jaamacadda SIU taa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka ardada ka galmudug idaacadda SIU oo waqti wanaagsan soo xaadiray si wanaagsan u soo xaadiray si maxaan ku yiraahdaa isaga ay ku jirto xilkasnimana u soo buuxiyay una soo maray jakinkii la sameeyay markii hoolka la soo galayay inta kadib aniga ku hadlayo guddoonka madaxa bannaan ee doorashada SIU Alumni Association waxaa maanta aan yani idin balan qaadaynaa insha Allah ta'ala sida yani sharciga islaamku uu yahay in meesha ka dhacdo doorasho xor ah xalaal ah
cadaalad ah cid walbana ay ku qanacdo sida aad dareemaysaan guddiga waa guddi madax bannaan waxaa guddoomiye ka ah macallin oo aanan maamulka jaamacadda yacni administrationka maamulka jaamacadda aanan meel ka soo gelaynin taana waxay ku tusinaysaa inaysan jirin dana qaasa iyo musharaxa qaasa oo ay jaamacaddu wadato ama dana qaasa ay ka leedahay ujeedka guud iyo hadafka laga leeyahay SIU Alumni Association waxaa caddeeyey public relationka jaamacadda Ustaad Hadi ayaa caddeeyey inagu maanta waxaan u joognaa in doorashada aanu ka ilaalino wax allaala wixii qalqal geli kara ama dhibaatay kara kalsoonida iyo kalsooni ku qabka doorashada iyo natiijada ka soo baxda meesha waxaan rajaynayaa musharaxiinta dhammaan inay ku qanci doonaan sanduuqaas cad ee bannaan wixii ka soo baxa wax allaala wixii cabasho ahna waxaan ku xallin doonaa inta programka uu socdo waxaan idinka rajaynayaa maadaama aad tihiin dad qalin jibiyey magaalada ku jira qaarkood haya busiishano sarsare oo annaga xataa inaga sii sarreeya inaanu muujino bisayl inaanu samayno muujino majority inaanu naqono dad xilkas ah dad dimuqraasiga barta dad yaqaana yacni nidaamka doorashooyinka iyo qaabkay u dhacayaan inaad naqataan dad yacni xildhibaano ah disbe meesha hadda aad joogtaan iyo wax hadda laydin tababarayo waa akademiyo waaye akademiyadaas oo laydinkugu barayo freedomka coddiibashada dimuqraasiga iyo lobbyka qaabka loo sameeyo qaabka doorasho loo galo yacni naxitaanka inaad ka saartaan qofka inuu sayska soo fariisto inuu muujiyo qofka shakhsiyadiisa waxaasoo dhan waxay qayb ka tahay tababarka iyo waxbarashada jaamacadda aad ku qaadateen intii skill aad soo qaadateen yacni skill lamid ayaa ku bari doontaan leadershipka hoggaanka maanta la doortay iyo dadka maanta xildhibaanada ah intuba insha allahu tacaala mustaqbalka waxay heli doonaan fursado ay ku hoggaamiyaan intaan inka ballaaran insha allahu tacaala marka akademiyadaasi qaabka la isku dooranayo habsinu socodka doorashada inaad fahamto oo aad xildhibaan naqato waxay kaa saacidaynaysaa inaad mustaqbalka perception u yeelato aad fahamto waxa dalka ka socda iyo dadka qaarkiis oo leh yacni dana siyaasadeed iyo ujeed siyaasadeed kuwaasoo yacni meeshaan ay u noqon doonto tababar ay ku tababaranayaan aad iyo aad ayaa mar kale idinkaga mahad celinayaa waxaa jiri doona shuruudo lagu dhaqi doono inta doorashada ay socoto dadku waxaa kala celiya shardi shuruuc iyo qawaaniin guddigu wuxuu u dejiyey shuruuc iyo qawaaniin iyo xeerarkaasaana lagu dhaqi doonaa insha allahu tacaala waxaan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala inaad maanta barataan dimuqraasiga iyo qaabka la isku doorto iyo qaabka elekshanada ay u dhacaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala doorashadeenu ku dhacdo hab ismuus ah hab daahfuran yacni cad oo wax dhibaato ah aysan la kulmi doonaa insha allahu tacaala waxaan idinka rajaynayaa in loo dheganuglaado habdhowrayaasha ama loo dheganuglaado protocol teamka kuwaas oo idinkugu adeegi doona sida ugu sahlan uguna wanaagsan in qof loogu adeego wax allaala wixii aad tabanaysana waxaan rajaynayaa in si nidaam ah aa u marto dhaqdhaqaaqa iyo socodkana yacni qof weynaa tahay inaan laguu sheegin marka ay istaagayso inuu habdhowruhu yacni intaa gacanta u taagato oo aa request samayso kadibna aa xaajaadkaada gudato waa mahadsantihiin salaadahayna waa guduba tukan doonaa waxaan rajaynaya xilliga salaadaha iyo qaabka loo aadi doono shuruudaha ay ku xusan yihiin maanta waa maalin weyn sharaf bay noo tahay inaad annaguna idiin naqano dad oo yacni cadaalad idin sameeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof walba oo halkan jooga oo isugu jira dad madax sare ah iyo qayb walba kala jooga qof walba waxaa ku salaamaya maqaamkiisa iyo booskiisa waxaana leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib inta ugu muhiimsan oo ah shuruudaha doorashada ayaan rabaa inaan soo koobo waxaana rajayn doonaa insha allahu tacaala dhammaantiin xildhibaanada iyo musharaxiintaba in ay nala qaataan oo ruliska sidiisa ay u qaataan insha allah haddii aan ka bilaabno doorashada waxyaaba badan ay ka koobnaan doontaa sida socodkeeda waxaan ka bilaabaynaa wareegyada uu noqon doono inta wareeg ee doorashada ka koobnaan doonto kow waxaan ka bilaabi doonaa doorashadu waxay noqon doontaa laba wareeg wareegga koowaad iyo wareeg labaad doorashada waxay mari doontaa marka labadaas wareegga koowaadna waxaa u tartami doona dhammaan 4 musharax sida hadaayo hore loo sheegay dadka musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha associationka alumni-ga ka qalinjabiyaasha jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya waxa weeyaan 4 qofood waxaa sidoo kale u sharaxan guddoomiye ku-xigeenka 1 qof macnaheedu waa tahay inaysan doorasho geli doonin maadaama marka laba wareeg ay tahay wareegga koowaad waxaa u soo bixi doona 3 musharax ee ugu codka badan
haddii aysan dhicin inuu hal musharax helin 3 meelood codadka la tiriyey 3 meel 2 meel 4 meel ama 3 meelood hal musharax helin 3 meelood 2 meelood marka la tiriyo 3 meel 2 qayb oo kamid ah codadka ugu badan qofkaas ayaa toos soo bixi doona marka haddii ay dhacdo marka maadaama ay 4 yihiin labada musharax ee ugu dambaysa codka haddii isku number isku mid ah oo tiro isku mid ah ay helaan waxay noqon doonaan labadaas sidooda u hari doonaan waxa uu gudbi doonaa wareegga labaad labada ugu badan codka haddii ay dhacdo in afartooduba isku dhibco noqdaan macnaheedu waxay noqon doontaa afartoodu waxay u gudbayaan wareegga labaad wuxuuna noqon doonaa wareeggaas cod dheeri wareegga labaad waxaa usoo gudbi doona marka ama labadii ama saddexdii ugu codka badneed ama labadii haddii laba isku cod ay noqoto hare saddexdii ugu codka badnaa wuxuuna noqon doonaa cod dheeri oo qofka ugu codka badan ayaa soo baxa intaa kadib markaan wareegyada ka gudubno waxaa xiga shuruucda doorashada dhexdeeda waxyaabaha la iska rabo kow sida doorashadana waxaan u baahanahay insha Allah sidii uu gudoomiyaha doorashada noo sheegay si transparency fiican leh xur ah oo qof walba ay arkayso oo cadaalad ay u dhacdo kow qof walba waxaan ka la sheegi doonaa shuruudaha soo socda inay ku dhaqanto tan koowaad waxaan noqonaysaa markii musharaxiinta u tartamaya gudoomiyaha doorashada hadda aan u fadhino qodbooyinkooda marka ay dhamaadaan cidna looma ogolaan doono inay soo gasho cidna looma ogolaan doono sidoo kale inay ka baxdo howlka doorashada aan halka fadhino qodobka labaad sidoo kale xildhibaanada dooranaya waxaa ka mamnuuc ah intay meesha fadhiyaan socod ama sheeko buuq iyo wax kasta oo dhibaateyn kara habsami u socodka doorashada xildhibaankuna waxa uu socon karaa marka magaciisa keliya la yeeriyo numberka labaad numberka saddexaad amiin qofkii loo arko inuu carqaladeynayo habsami u socodka doorashada waxaa go-aan cad ka qaadan doona guddiga madaxa bannaan ee doorashada waxaana laga yaabaa inuu qofka waxa uu markii caqabadaas loo soo gudbiyo guddiga doorashada kadib qofkii buuq sameeya ama qaylo keena doorashada dhexdeeda waxaa laga saari doonaa howlka doorashada xaqna uma yeelan doona inuu codeeyo qodobka shanaad xildhibaanka codkiisa dhiibanayo waa inuu isku garanayo magaciisa iyo numberka ID cardka maadaama la xaqiijin doono magaca qofka codeynayo qof walba waxaa looga baahan yahay xildhibaan oo halka jooga numberka ID cardkiisa magaca labadaba inuu isku garanayo qodobka lixaad xildhibaan kasta waxaa laga codsanayaa inuu sugo inta magaciisa looga yeerayo adigoo magacaada la yeerin ha istaagin adigoo maasan xildhibaan todoba xildhibaan kasta waa inuu qaataa warqadda ay ku xusan yihiin magaca ama magacyada musharaxiinta kadibna uu calaameeyo musharaxa uu codkiisa siinayo bokiska keliya bokiska waxay noqon doonaan musharaxiinta haddii aan kor ka tusino musharaxiinta maadaama dad isku magacyo ay u badan yihiin oo 3 qof magacyo ay leeyihiin waxaan aad ugu dadaalnay inaan qalad ama san ka dhicin qof walba sawirkeeda iyo magaciisa ayaa qoran waxaan u qorayn si alphabetical waxaan fiirin doontaa marka bokisi ayaa hortooda ku yaala kaliya waxaa calaameynaysaa bokiska musharaxa aad u codeynayso waxaana saaraysaa tig ama sax kaliya lama ogola ama lama aqbali doono ama lama tirinaayo haddii aad laba meel aad saarto tigta ama saxda laba musharax codkaas wuu khasaari doonaa haddii meel ka bannaan bokiska qofka aad dooranayso aad saarto sax ama tig sidaan u fahmnay sidoo kale codkaas lama tirin doona waxaanan ahayn in tig la saaro ama saxda sidaas kula fahmeen waxaanan ahayn in la aqbali doono tusaale qalad ma la saarayo dhibici ma jirto keliya waxaan aqbalaynaa bokiska qofka aad musharaxa aad u codeynayso bokiska hortiisa ah oo tig saaranta wixii ka baxsan intaa waxaan arkaynaa cod halaabo qodobka 8 waxaan ku daray kii hadda oo waxa waaye haddii aad meel kale aad kala calaamadayso
sagaal markii codadka dhammaan la dhiibto musharax kasta waa inuu soo dirsadaa qof codadka u tiriya codka uu tirsaday matalaha musharaxa waxaa dib u tirin doona guddiga madaxa bannaan ee doorashada si loo xaqiijiyo qodobka 11aad natiijada codadka la tiriyey waxaa ku dhawaaqi doona guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qofkii loo arko inuu carqaladeynayo habsami socodkana hore ayaan u sheegay shuruudahaas sidoo kale waxaan xildhibaanada aad uga codsanaynaa in ay magacyada qofka ay u codeynayaan maadaama waxaa ku jira 3 Ismaaciil soo Ismaaciilka u codeynaysa adiga og iska xaqiiji marka hore warqadda 2 meel iyo 3 meel si aadan u kala garan marka meel aadan sax saarina sidoo kale waxaan ku dari doonaa habka socodka doorashada iyo qofkii magaciisa la yiri sidoo noqon doono qof kasta oo xildhibaan magaciisa ayaa la yeerin doonaa halkan waxaa noo yaala guddiga ayaa fadhiya miiskaas aad arkaysaa magaca marka halkan laga yeeriyo wuxuu soo mari doonaa kursiga kusoo xiga qofka fadhiya oo aniga noqon doona marka ama qofkii kaloo fadhiya waxaa la xaqiijin doonaa magaca la yeeriyey iyo ID cardka qofka waxaa la weydiin doonaa ID cardkiisa magaca ugu qoran oo la yeeriyeyna waa laga xaqiijin doonaa kadib wuxuu mari doonaa qofka saddexaad halkaa waxaa yaalo khad yar oo qof walba gacantiisa gacanta bidix ah uu saari doono sida u saaray waa sheegaynaa kadib wuxuu mari doonaa meesha u dambeysa oo guddoomiyaha guddiga doorashada warqadda codbixinta ayaa laga siin doonaa halkaas ayuuna kadib wuxuu u soo aadi doonaa boxka lagu ridaayo intaanu boxka gaarin wuxuu tegi doonaa stageskaas uu kusoo qoraayo qofkii uu musharaxa uu codka siinayay kadib wuxuu kusoo laaban doonaa halkan warqadda wuxuu isku laabi doonaa ugu yaraan ama 2 jeer ama 3 si fudud ah wuxuuna kusoo ridi doonaa boxka waxaan dib ugu soo laabanayaa marka halka waxaan kusoo laabanayaa marka halkan warqadda la saari doona gacanta qof walba waxaa laga rabaa inuu gacantiisa bidix roonka koowaad farta la yiraahdo fartaas Soomaali murugsato ama index fingerka fartaas ayuu qof walba saari doonaa bidixda markii la gaaro roonto macnaheedu waxa taa qof walba oo fartaas ku la maxaa la yiraahdaa qad wuxuu codeeyay roonka koowaad hadaa 2 far saarato macnaheedu waxa waaye uu ka dhamaa codka roonto waa codes soo si aad u ogaatid waxa laga rabaa roon waa in hal farqad u leedahay si aad mar labaad u soo laaban qof aan qad lahayn warqadiisana timber aysan saarneen lama codkiisu u halaa sidoo kale roonto qof aan cod lahayn soo mari doona halka soo roonto markii la gaaro hubinta magacyada waxaan ka bilaabi doonaa magacaaga iyo ID cardkaaga waxaa la sii socda qad fartaada ku taal waxaan leenahay fartaada soo bixi haddii laba ugu taal waxaan leenahay qofkaas soo sigaas ama 3 ama 4 soo hal xabo bis hal farsaar kaliya roonto markii la gaaro farta labaad macnaheedu waxaa taas uga fogaanayna in qof 2 jeer ama 3 jeer ku soo laabato aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad nala qaadataan qof walbana ay fuliso intaas waa shuruudaha qaybta doorashada sidoo kale waxaa jira shuruucaha kale musharaxiinta aan ayagana u jeedinayno musharax kasta waxa uu xaq u yeelan doonaa inuu codkiisa dhiibto maadaama uu asagu ka mid yahay alumnayga jaamacadda waa inuu aqbalaa natiijada doorashada haddii ay jirto cabasho waa inuu guddiga doorashada la wadaago waxa uu ka cabanayo ama uu tabanayo waxa uu xaq u yeelan doonaa in la siiyo codbaahiyaha haddii uu doonayo inuu iscasilo waa inuu u hambaliyeeyaa musharaxa ka adkaaday haddii ama guddoomiyaha markaa noqdo haddii isaga laga adkaado cabashadu waxa ay ku eg tahay inta aanan natiijada doorashada lagu dhawaaqin soo haddii natiijada lagu dhawaaqo kadib ma jirto cabasho musharaxu waa in uu ku sugnaado howlka marka ay doorashadu dhacayso maadaama hadday aan ka mid kii koowaad baan ka dhigin cidna ma baxayso ma soo laabanayso markii musharaxa ugu dambeeya uu jeediyo khudbadiisa sidoo kale waxaa jira shuruudo yar oo aan u jeedinay protocol teamka idinkana aan rabno inaan la ogaataan maadaama ay dadka noo taagan oo
rabaa in habsan u socodka doorashada ay aad noogu wanaagsanaato adinkana aan rabnay inaad ku xushmaysaan guddiga protocolka waxaan ka codsanaynaa waa inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo habsami u socodka doorashada waa inay xadidaan dhaqdhaqaaqooda xilliga ay doorashadu socoto macnaheedu maana ayaguna inay dadkii kala waafaqsina xoogaa inay socodka iyaysan nagu badan ayagoo mahadsan waa inay muujiyaan dhexdhexaadnimo waa in ay si fiican ula dhaqmaan xildhibaanada sharafta leh iyo musharaxiintaba waa inay usoo gudbiyaan guddiga ciddii ay u arkaan inay carqaladanayso howlaha ama doorashada socoto maadaama doorashadu xilli dheer inay nala noqoto laga yaabo waxaa jira dad muslima maadaama ana salaada iyo sida ay noqonayso xilliga salaada waxaa salaada la dukan doonaa labada wareeg dhexdooda haddii ay salaaduna qabato hal mar ayaan salaada la wada aadi doonaa haddii ay salaaduna qabato iyada uu wareega dhammaaday codka lama tirin doono ilaa salaada laga soo dukado tusaale wareega koowaad markii aan dhammeynay oo tirinta dhimantaa waqtiga salaada la gaaray waxaan sameynaynaa waa soo dukanaynaa kadib ayaa codka la tirin doona haddii ay ka hor noqoto codka markaa tirin waxaa wareega labaad ay dib loo ka bilaabi doona intaa kadib waxaa jirta hal shay oo musharaxiinta aan ka halmaamo ah taybka musharax kasta uu haysto keliya inuu khudbadiisa kusoo jeediyo waxay noqon doontaa si uu usoo gudbiyo waxaa la ogol yahay inuu ka soo galo inuu xaq u yeelan doonaa inuu soo bandhigo qorshe holoodkiisa iyo waxqabadkiisa muddada uu xilka haayo waxaa la siin doonaa muddo 10 daqiiqo ah musharaxii waqtiga markuu ka dhammaado ama dhammaysta waxaa laga damin doonaa codbaahiyaha ka horna waxaa la siin doonaa alerta in waqtigiisa waqti uga dhimaya aad baad u mahadsantihiin si aan hore ugu sii wadano waxaan hore usii galaynaa khudbooyinka musharaxiinta aniga toos uga sii bilaabi doono sida alphabetically magacyadoodu ay u qoran yihiin haddii aan magacyadeedi kugu celiyo afarta musharax ee u tartamaya SIU Alumni Association Election 2019 number 1 Abdullahi Ali Idle number 2 Dr. Ismail Abdullahi Mahmoud number 3 Ismail Abubakar Osman number 4 Ismail Haji Ibrahim Khasim waxaan ka bilaabaynaa musharaxa koowaad Abdullahi Ali Idle waxaan sidoo kale guddiga ka codsan lahaa inay waqtigii lagu ballamay u qabtaan si balantu sidii balantu waxaan gaaraya salaan u soo jeedinaya gudoomiyaha guud ee jaamacadda SIU mudane Dr. Usman Macalin Xasan sidoo kale waxaan halkaan uga mahad celinayaa ku-xigeenada gudoomiyaha dhanka maamulka iyo maaliyadda dhanka waxbarashada iyo arrimaha ardayda dhanka researchka iyo horumarinta sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga qaabaqaabada doorashooyinka kuwaas oo juhdi habeen iyo maalin ah gelshay qabsoomidda madasha quruxda badan sidoo kale waxaan mahad gaara iyo salaan u soo jeedinayaa dhammaan dhiiniska kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda SIU kuwaas oo soo saara sanad walba arday tacliin iyo aqlaaq intaba leh waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan macallimiinta jaamacadda SIU kuwaas oo mar walba u taagan soo saaridda arday tayo leh waxaan sidoo kale u mahad celinayaa mahad iyo bogaadin intaba u jeedinayaa dhammaan qalinjabiyaasha SIU kuwaas oo aqbalay gartay inay samaystaan midowga qalinjabiyaasha jaamacadda SIU Alumni Association waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha jaamacadda anigoo mid walba ku salaamaya booska uu ku fadhiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa kaamiramanada TV-yada iyo marti sharafta mahad celin kadib mudan ayaa ii marwooyin anigoo ah Abdullahi Ali Idle Engineer Nuure ka qalin jabshay jaamacadda caalamiga ee Somali International University SIU Faculty of Computer Engineering and Technology 2016-2017 mudanayaal iyo marwooyin higsigayga iyo qorshahooleedkayga fog intaba
waxay ku salaysnaan doonaan 6 tiir ee aan xusi doono oo aan u arkay kuwa bilow wanaagsan u noqon kara higsigayga. 1. mideynta iyo iska warqabka dhammaan ardayda ka qalin jebisay jaamacadda SIU. waxaan ka shaqayn doonaa inaan mideyno dhammaan ardayda aysan dhicin arday midowga ku jiro inuu garan waayo saaxiibkiisa ama saaxiibteed ay midowga ku wada jiraan. waxaana marka hore isku dari doonaa fakad kadibna waxaan isku xiriirin doonaa dhammaan fakaltiyada. Number 2. ka warqabka ardayda mid ka shaqeeyo iyo mid ka shaqo la-aanta ah. waxaan shaqalooda raadin doonaa dhammaan ardayda aanan shaqaynin si loo waayo arday ka baxay SIU oo shaqo la-aan ah. sidoo kale waxaan u samayn doonaa shaqo abuur. Number 3. isugu kaalmeynta arrimaha bulshada sida guurka, bukaanka iyo geerida. midowgeyga wuxuu ka shaqayn doonaa inay ardayda isugu gurmadaan mar walba oo arday keenaa wax qabsadaan. waxaana ku wada shaqayn doonaa gacmahooda jir bay wax ku gooyaan iyo qof wixii dhiba labo ma dhibaan. sidoo kale booqashada ardayda naga xanuunsata ama ay wax naga gaaraan. Number 4. fursad u abuurka ardayda qalin jebisay sida kordhinta xirfadaha asaasiga, ogeysiiska fursadaha shaqo ee jiro iyo kaalmooyinka waxbarasho ee heerka 2. 5. xoojinta xiriirka caalamiga ee nagala dhexeeya ururada jaamacadaha kale gudaha iyo dibadda intaba. waxaan ka shaqayn doonaa inaan ku xiro midowga jaamacadda SIU Alumni Association kuwa kale ee jaamacadaha dibadda iyo gudaha ka jiro. Number 6. ilaalinta cadaaladda iyo sinaanta ardayda dhexdooda ah. mudanayaal iyo marwooyin, cadaaladda waa shayga dadka isku hayo. waxaana ardayda dhammaantood u samayn doonaa cadaalad iyo sinaan. mudanayaal iyo marwooyin, 6 tiir ayaa udubdhaxaad u noqon doonta waxqabadka iyo hiigsiga maamuleed haddii aan ku guulaysto gudoomiyaha midowga qalinjabiyaasha SIU Alumni Association. wabilaahi tawfiiq. السلام يا أكاديمية جامعة كرينادا سبيلات الدول مدح برشلة مدح ريسيرشكا كنت جزء من شغلي كان كنت برشلي كالوميو SIU لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسن قاسم السلام دين بدع فتح على المهم جماعة وأركان سكن لما أنتي وما سنتي أنا أدي السلامات لقد عاد SIU يقدم جزء وبيت الساينسكا كل دول الجامعات كمان سقاقلياشا حلبانada ee u soo tartamay in codkooda siiyaan SIU Alumni. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kamid noqdo musharaxiinta u tartamayo SIU Alumni ama midowga qalinjibiyada jaamacadda SIU. ugu horeyn magacaygu waa Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud. waxaan ku dhashtay magaalada Muqdisho. waxbarashadeedina waxaan ku qaatay dugsiga sare ilaa dugsiga dhexe hoose magaalada Muqdisho, iskuulka Al-Huda Primary Secondary School. jaamacadeedina waa jaamacadda SIU. waxaan ahay alxamdulillah waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in aan noqdo dhakhaatiirta ugu horeysay ee jaamacadda SIU ee maanta ku faanto. waan ku faraxsanahay inaan noqdo dhakhaatiirta ugu horeysay ee jaamacadda SIU soo saarto. aadaan ugu faraxsanahay. tan xigto waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kamid noqdo musharaxiinta u tartamayo xilka midowga dhakhaatiirta midowga ardayda SIU qalinjibiyada ardayda SIU. waxaan rabaa inaan ka hadlo experience-gayga aan u leeyahay arrimahan. maxaa yeelay waxa uu wuxuu baahay experience u baahan so someone ma qaban karo without experience shaqo ma qaban karo. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ahay agaasimaha guud isbitaalka Royal General Hospital. waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan hore u soo noqday medical director-ka isbitaalka Cambridge Specialist Hospital. waxaan kaloo ka soo shaqeeyay aan mimbarre ka soo noqday ururo badan oo ka jira dalka. ay ugu muhiimsan yihiin laba urur weliba aan ka soo noqday membership-ka gudoomiyaha aan ka soo noqday
waxaan aasaasay sanadkii 2010 aniga asxaab dhaqaatiir ah oo xilligaas ardayna ahayd lagu magacaabo Somali Health Science Association oo lagu magacaabo SOSA markaasna aan ka noqday gudoomiyaha 2013 ilaa 2014 waxaan kaloo membership ka noqday urur lagu magacaabo MEDA waxaa laga soo gaabiyay midnimo Education Development Association ururkaasi wuxuu inta badan dadka ka caawiyaa dadka agoonta ah dadka tabaaleysan aan waxna baran dadka dhibaatooyinka haysto ee aan waxbarashada awoodin ayuu wuxuu ka bixiyaa waxaan u sameynay in jabkeena dadka jooga wadanka ee shaqeysa ama waxbarta inaan ka aruurin lacag yar lacagahaas inaan ku baro dadka agoonta ah ama dadka dhibaateysan wadanka Soomaaliya ku nool ayaan sameynay ururkaasi waxaan ka noqday gudoomiye 2014 2016 ilaa 2019 dhammaan adigo experience kale iyo kusoo shaqeeyay ama soo sameeyay ismooyin kale ee ururo waxaan maanta halkan soo istaagay in xildhibaanada qalbiyaasha jaamacadda SIU iyo codkooda isiyaan waxaan ka codsanayaa in codkooda isiyaan si xushmad iyo sharaf badan tahay haddii ay doortaan waxaan ka shaqeyn doonaa 6 qodob oo muhiim ah kow isku xirka dhammaan qalbiyaasha jaamacadda SIU waan ognahay jaamacadda SIU waxay u kooban tahay kulliyado badan kala kooban tahay dad baa jooga 2016 dad baa qalin jooga 2017 dad baa qalin jooga 2019 waxaan rabaa markay intaas oo dhan isku xidho aan ka sameyno midlow dhammaystiran oo cadaalad iyo sinaan iyo horumar leh oo isku xidho dhammaan qalbiyaasha jaamacadda SIU waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo haddaad doortaan horumarinta ururka qalbiyaasha jaamacadda SIU inaan ka hormarino dhammaan wax walbo dadka asaageena nalamid ah ee ku nool magaalada Muqdisho ama naga baxsan ama adduunka ku nool ay leeyihiin systematic ay leeyihiin aluminium u leeyihiin inaan horumarino ayaan ayagana ka shaqeyn doonaa hadduu ilaahay idmo ka shaqeynta horumarinta waxbarashada dhiirigelinta cilmi baarisnida dhammaan xubnaha ururka qalbiyaasha SIU ayaa ayagana ka shaqeyn doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan kaloo ka shaqeyn doonaa qodobka afraad ah mideynta isku xirka ururka qalbiyaasha jaamacadda SIU iyo dhammaan ururada qalbiyaasha jaamacadda dalka ka jiro maxay intaan ognaa waxaa jira ururo qalbiyaasha jiro kuwaasoo ka kooban jaamacado kala duwan ka dhisan iyo ayagana waxaan la sameyn doonaa tacaamul ah inaan ka wada hadalno ama aan la sameyno connection aan la sameyno hadduu ilaahay idmo 5 abuuridda fursado shaqo kuwa waxbarasho iyo horumarineed ee dhammaan qalbiyaasha jaamacadda SIU waxaan ognahay in Soomaaliya aan aad ugu faraxsanahay dadka jaamacadda SIU qalin joogi maadaama ay tahay jaamacad aad u heer sareyso 60% sida dadku ay shaqeeyaan inta aan dhiman ee shaqaan shaqeeyay inaan shaqooyin waxaan kaloo sameyn doonaa insha Allah taala ilaahay idmo dhisida matalayaasha dhammaan qalbiyaasha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda SIU inta kulliyada jaamacadda ka kooban tahay waxaan ka sameyn doonaa dhismo tiir dhisan oo kaasoo hoos yimaado ama la shaqeeyo ururka qalbiyaasha jaamacadda SIU dhammaan waxaan ka codsanayaa anigu intaan ku soo codsan intaas dhammaan shaqooyinka kor ku soo codsay iyo kuwa kale qaar kale oo ka badan oo rajaynayo aan isleeyahay waa noo qarsan yihiin rajayduna insha Allah tacaala inaan ka shaqeyn doono hadduu ilaahay idmo dhammaan waxaan ka codsanayaa dadka xildhibaanada meesha joogo codkooda iyadoo isiyaan magacayga saddexaan waa Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud waxaan ku sameyn doonaa cadaalad horumar sinaan iyo iskaashi waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ugu horeyn waxaan salaamayaa gudoomiyaha jaamacadda SIU Professor Osman Macalin Xasan walow hada uu horteeda uu naga maqan yahay waxaan kaloo salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda Suhayb Cilmi Dhuxulow sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada oo ah Maxamed Yuusuf sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka research-ga oo ah Saafici Diriye Cabdi sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan diinanka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda SIU walow aan hadda in badan aan u jeedin Dr. Cali Jimcaale horteeda fadhiyaan marka sidoo kale waan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha jaamacadda SIU macallimiinta guddiga doorashada oo madaxda u yahay Ustaad Axmed Si Cabdihaadi iyo gudoomiyaha doorashada oo ah nin qaaligood Axmed Si Cali Saabir دمان وسلام يا وحنا وسلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام
waxaan rabayaa waxaan ahay horta musharax u taagan xilka guddoomiyaha ardayda qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. marka hore magacaygu waa Ismaaciil Abuukar Cusmaan. haddii aan ka hadlo waxyaro kooban taariikh nololeedkayga ku saabsan, waxaan dhashay 24 bishii 1982. waxaan ku dhashay magaalada gobolka Shabeellaha Dhexe, magaalo madaxiisa Jowhar. waxbarashadeedii dugsiga quraanka waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho. iskuulkayga hoose dhexe sare intaba waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho. jaamacadahaygii oo ay ka mid tahay jaamacadda SIU, jaamacadihii aan wax ka bartay ayadana waxaan ka baxay 2017 ardadii ka qalinjibisay ka mid ahaa. intaas kadib haddii aan ka hadlo waxqabadkaygii intii aan joogay, ama aqoontayda, waxaan ahay horta double badge iyo hal diploma ayaan iska aqoon ahaan. waxqabadkaygu waxaan ka mid ahaa ganacsatada suuqa bakaaraha muddo 17 sano ah, oo aan ka mid ahaa daawoleyda suuqa bakaaraha. sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay badan oo aan la soo shaqeeyay ururada local NGOs-ka, waxaa kaloo la soo shaqeeyay ururada bulshada, waxaa kaloo la soo shaqeeyay in badan aan gacan ka geystay ururkii jaamacadda midowga SIU, oo aan ka mid ahaa dadkii wax ka aasaasay ama wax ka dhisay muddadii uu shaqeynayay in badan, ama sharcigeedii inta badan oo wax badan ka qaatay. intaas kadib siyaasadeedkaygii haddii aan u gudbo, waxaan doonayaa waxaan ahay guddoomiyaha ama hadafkiisa ardada qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. haddii aad ii doorataan guddoomiyaha qalinjibiyaasha jaamacadda SIU, waxaan dhisi doonaa maamul wanaagsan oo ka kooban dhammaan qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. waxaan samayn doonaa guddiyo kala duwan si loo yareeyo qaladaadka. sidoo kale waxaan samayn doonaa xeer hoosaar dadka waxaa kala haga sharci. sidoo kale waxaan xoogga saari doonaa meelmarinta iyo ku dhaqanka sharciga. waxaan ku dadaali doonaa isku keenida dhammaan qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. waxaan samayn doonaa insha Allah database iyo website laga heli kara dhammaan qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. waxaan xoogga saari doonaa sare u qaadida ururka howlihiisa, sidoo kale si uu la mid noqdo dhammaan ururada ka jira dalka iyo caalamka. waxaan iskaashi la samayn doonaa insha Allah ururada nalamidka ee ka jira caalamka. ururku wuxuu xoogga saari doonaa helitaanka fursado shaqo iyo scholarship loo raadinaya ardada qalinjibiyaasha jaamacadda SIU. waxaan jaamacadda kala hadli doonaa haddii ay soo baxaan shaqooyin dhanka jaamacadda in ayna soo marsiyaan si aan ugu soo bandhigno ardada. waxaan sare u qaadi doonaa tababarada ardada qalinjibiyaasha jaamacadda. ururku wuxuu hiigsan doonaa sare u qaadida iyo tayeynta howlaha, wuxuuna xoogga saari doonaa samaynta qorshe howleedka ururka. waxaan meelmarin doonaa dhammaan howlaha ururka maalin kasta insha Allah. waxaan rajaynaa in aad ii doorataan, sababtu waxaan ahay qof aad garanaysaan dadaalkiisa iyo waxqabadkiisa inta aan ku sugnaa jaamacadda iyo gacantii aan ka geystay dhismihii ururka midowga jaamacadda iyo samayntii xeer hoosaadka ururka oo aan ka mid ahaa guddigii loo xil saaray, khaasatan qofkii loo xil saaray samaynta xeer hoosaadka ururka midowga jaamacadda SIU. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. مدن علي مروين قدوميها public relationship واحنا قدقة بسيدة أوركا دينسكا كالدوان جامعة قدوميها دورشوين كمدح بنان جامعة ضمان مشارحين كنتاغن قبشada xilka gudoomiyaha qalinjibiyaasha jaamacadda, shaqaalaha kala duwan ee jaamacadda, kaamiramanada, dhammaan marti sharafka halka fadhida. waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maqaamka ay halkan ku fadhido. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. barqa wanaagsan ardada sharafta leh ee jaamacadda. waxaa sharaf weyn iyo inaan maanta hortiina imaado anigoo ah musharax u taagan inuu qabto
xilka guddoomiyaha SIU Alumni Association ee labada sano ee soo socota oo aan idinla wadaago qorshe hawleedkayga ku aadan haddii aad ii doorataan xilka guddoominimo ee SIU Alumni Association sida uu ahaan doono waxqabadkayga shaqo hadduu alla idmo. inta aanan u gudagelin hadalkayga waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan intii doorka ka soo qaadatay xafiiska public relationship-ka iyo madaxda sare ee jaamacadda. in la dhiso urur ay ku midaysan yihiin qalinjibiyaasha jaamacadda SIU waxaa si gaara oo xushmad ku dheehan tahay ugu mahadnaqayaa dhammaan bahda aan qalinka soo wadaagnay ee halkan soo xaadirtay oo raba inay codeeyaan oo ay doortaan qofkii hoggaanka u noqon lahaa. sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago qorshe hawleedkayga ee aan doonayo in aan idinku hoggaamiyo anigoo marka ugu horeysa ballan qaadaya inaan noqdo qofkii ku shaqeeya wadajirka iyo midnimada ardada kala duwan ee ka qalanjibisay dhammaan kuliyadda jaamacadda. waxaan aaminsanahay inaan si ardaynimo ah wax wada qabsan karno oo jaamacad walba waxaa u istaaga dhallinyaradeeda. ma dhici doonto in arday ka qalanjibiyey SIU inaan dayacno uusan helin xuquuqdiisa. arday walba waxaa u baahan yihiin guddoomiye fahmi kara duruufahana haysta isla markaasna diiradda saara waxyaabaha ugu muhiimsan si loo gaaro horumar la taaban karo oo ku dhisan isla xisaabtan dhab ah iyo maamul hufan oo ka howlgala wadatashi, isqancin, isfahan, isu samir iyo is-horsocod joogta ah. mudanayaali marweyn wax yar aan idin dulmaro taariikh nololeedkayga. waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan. dugsi quraankayga waxaan ku dhameeyey dugsiga Macallin Maxamed, sidoo kale dugsiga hoose ilaa iyo sare Al-Nur Primary and Secondary School baan ku dhigtay. markaan dhameeyey dugsiga sare 2014 waxaan waxbarashada jaamacadda heerka koowaad jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya SIU aan ku qalinjibiyey Agosto 2018. kolkii waxbarashada jaamacadda aan dhameeyey waxaan noqday Head of Trading and Operation ee ururka Race Social Development Association RASDA oo aan qabanno trainino fariya. sidoo kale waxaan caawinaa dadka soo barakacay dhanka aqoontan ka caawinaa. waxaan u geynaa macallimiin fariya oo wax ku bara kaamamkoodii. 2000 inta ay jaamacadda ii socotay iyo inta ka horeysayba waxaan ahaa ganacsade wax badan ku dhex jiray ganacsiga. 2015 ilaa 2016 waxaa la ii magacaabay xogeeyaha guud ee ururka Soyded uu madax ka ahaa saaxiibkay Maxamed Mursal Salaad oo runtii in badan galaaska wada dhiganaynay. kadib markii aan dhameeyey jaamacadda waan soo arkay dhibaatooyinka ay tabanayaan ardada aan muddada wada joognay iyo fursadda jaamacadda ayna siisay. waxaan go'aansaday January 2019 inaan isku soo sharxo xilka guddoominimo ee SIU Alumni Association. ruux walba oo u tartamaya xilka guddoominimo waxa aad u qurux badan in ardada sharafta leh ee kuliyadaha kala duwan ay ku tixgeliyaan taariikhdiisa shaqo iyo waxqabadkiisa. mudanayaasha sharafta leh waxaan aaminsanahay inaan waqtigayga intiisa badan ka howlanaa u adeega ardada iyo waxqabadka bulshada. mudanayaal iyo marweyn ardada sharafta leh ee qalinjibiyaasha waxaan maanta hortiina ka ballan qaadayaa haddii aad igu sharaftaan in aad ii doorataan xilka guddoominimo inaan si buuxdo dib u soo wada noolayn doono dhammaan xiriirada ardayda
dal iyo dibad hadduu alla idmo xadadahaas oo ay ka mid yihiin midaynta ardayda kala duwan ee ka qalanjibisay jaamacadda dhisidda urur ay ku midaysan yihiin dhammaan qalanjibiyaasha jaamacadda sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa inaan abuurno fursado shaqo oo ay ka faa'iidaysan karaan shakhsi walba oo ka mid ah ururka qalanjibiyaasha SIU waxaan ka shaqayn doonaa danta guud ee arrimaha ardayda iyo jaamacadda sidoo kale waxaan xoojin doonaa xiriirka ardada qalanjibisay iyo jaamacadda sidoo kale waxaan xooga saari doonaa isku xirka dhammaan alumniyada dalka ka jira iyo kan jaamacaddeena sidoo kale waxaan samayn doonaa hab systematic ah oo sahli doona xiriirka ardada qalanjibisay si aan sare u qaadno aqoonta ardada qalanjibisay waxaan samayn doonaa seminaries joogta oo sare lagu qaadi doono aqoonta ardada qalanjibisay ee jaamacadda sidoo kale waxaan kala shaqayn doonaa waxbarashada dibadda fududeynteeda sidoo kale waxaan samayn doonaa shirar iyo doodo lagu horumarinayo aqoonta ardayda ka qalanjibisay jaamacadda intaas kor ku xusan iyo waxqabadkayga waxaa saldhig u ahaan doono cadaalad iyo isla tashi ardada sharafta leh ee halkan fadhida waxay u baahan yihiin gudoomiye daacada howlkar ah shaqo yaqaan ah waxaan aaminsanahay inaan buuxin karo dhammaan qodobadaas aan kor ku soo sheegay sidaas awgeed waxaan si sharaf leh oo xushmad ku dheehan tahay idinka codsanayaa idinkoo tixgelinaya taariikhdayda shaqo iyo shakhsiyadeyda in aad ii doorataan iguna aamintaan xilka gudoominimo ee SIU Alumni Association aad baad u mahadsantihiin magacayga dhamaystiran waa Ismaaciil Xaaji Ibraahim عبد الفتاح حرسي عبد الفتاح حرسي معلم عبد الله عبد الفتاح محمد عيسى عبد الله وعلي عبد العزيز حسن وعلي انجنير عبد الله محمد عداوي وعدي عبد الناصر علي قرون عبد الناصر محمد كذيه عبد الرحمن نور توريري عبد الرحمن عمر محمود عبد السلام علي بره وعدي codkii ayaan tirinaynaa waana bilaabaneynaa hadda warqadda noo soo baxday ee ugu horreysa waxaa ku xusan musharaxa gudoomiye Dr. Ismaaciil Abubakar Maxamuud Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud هذا إسماعيل أبو بكر عثمان عبد الله علي يلي دكتور إسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي يلي
عبد الله علي إيدلي دكتور إسماعيل عبد الله محمود إسماعيل أبو بكر عثمان دكتور إسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي إسماعيل حاج إبراهيم قاسم عبد الله علي إدلي دكتور إسماعيل عبد الله محمود دكتور إسماعيل عبد الله محمود إسماعيل حاج إبراهيم قاسم دكتور إسماعيل عبد الله محمود إسماعيل أبو بكر عثمان إسماعيل أبو بكر عثمان عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي دكتور إسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي إدلي إسماعيل حاج إبراهيم قاسم إسماعيل حاج إبراهيم قاسم عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي عبد الله علي إدلي إسماعيل حاج إبراهيم قاسم الدكتور إسماعيل عبد الله محمود دكتور إسماعيل عبد الله محمود إسماعيل حاج إبراهيم قاسم دكتور إسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي إدلي دكتور إسماعيل عبد الله محمود إسماعيل أبو بكر عثمان دكتور إسماعيل عبد الله محمود 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 إسماعيل أبو بكر عثمان دكتور إسماعيل عبد الله محمود 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 عبد الله علي إدلي
إسماعيل حاج إبراهيم قاسم. إسماعيل حاج إبراهيم قاسم. إسماعيل أبو بكر عثمان. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي يدلي. إسماعيل أبو بكر عثمان. إسماعيل أبو بكر عثمان. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. إسماعيل حاج إبراهيم قاسم. إسماعيل حاج إبراهيم قاسم. عبد الله علي يدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. إسماعيل أبو بكر عثمان. إسماعيل دكتور إسماعيل عبد الله محمود. إسماعيل حاج إبراهيم قاسم. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي يدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي يدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي يدلي. إسماعيل أبو بكر عثمان. إسماعيل أبو بكر عثمان. عبد الله علي يدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي يدلي. doorashada wareegga koowaad maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha koowaad 2019 waxaanu u fadhinaa oo aanu u joognaa inaanu samaysano gudoomiyaha naadiga ardada ka qalin jibisay jaamacadda SIU waxa koranka soo xaadiray oo soo fadhiistay xildhibaano tiradoodu ay tahay 192 xildhibaan سجاشن يلا بحي اللي معنا يا صاحى ذيتي نتيجته وحيبدأ عليه سيدة صوصعطة مشرح القدومية إسماعيل حاج إبراهيم قاسم وحقوا هلي
21 عضو. مشرح قدومية إسماعيل أبو بكر عثمان وحا هلي 31 عضو. مشرح قدومية عبد الله علي إيلي وحا هلي 62 عضو. مشرح قدومية دكتور إسماعيل عبد الله محمود وحا هلي 76 عضو. مجيرو قدومية مشرح قدومية أو هلي عضدكي لوغو طلقلي أو أها 3 ميلود 2 ميل أو قاري بقول 76 عض حلبان هلا يعني مشرح هلا مجيرو سادتد waxaan ku qasbanahay inaan aadno wareega labaad waxaan u soo baxay wareega labaad saddexda musharax ee kala ah musharax gudoomiye Dr. Ismaaciil Abdullahi Mahmoud musharax gudoomiye Dr. Abdullahi Ali Idle iyo musharax gudoomiye Ismaaciil Abu Bakar Usman waxa wareega koowaad nasiibku ka hiiliyay ee ku soo bixi waayay musharax gudoomiye Ismaaciil Haji Ibrahim Qasim oo lagu mahadcelinayo doorashada haddii uusan jirin musharaxiinta saddexda ah ee u soo gudubto wareegga labaad mid kamida oo iska tanasulaya ama ka tanasulaya waxaan ku soo dhawaynaynaa haddii uu jiro haddii uusan jirinne waxaan rajaynaynaa inaan aadno wareegga labaad insha allahu tacaala وكمل المشاركين توصلوا قدوتوا وريق اللبان عاصر تقلع المفروض يدونه ولا نكبر سنو أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مديريات شرفت لأهد ومهتيهين maanta waqtigooda qaaliga halkan u soo horay inay dhigtaan codkooda si ay u helaan ninkii ugu habboonaa ee hogaamin lahaa labada sano soo socoto guddiga ama waxaan ku soo ururka qalinjibiyaasha jaamacadda SIU anigoo ah ka mid ah Ismaaciil magacaygu waa Ismaaciil Abu Bakar Usman kana mid ah ardayda qalinjibiyaasha jaamacadda SIU una taagnaa xilka gudoomiyaha waxaan rajaynayaa ama aan idin rabaa inaan sharxo halkan waxaan ka mid ahaa dadkii u taagnaa in ama dhowr mar maamulka u tagay in la dhiso ururka qalinjibiyaasha jaamacadda SIU haddana waxaan rabaa inaan iska casilo maadaama asxaabtaydii ama rag garabadayda ay tartamayaan anigana maxaan ku sheegaa oo aan ka mid ahaa waxaan rajaynayaa in aan codkaas dadka kale looga faa'iideeyo waa mahadsantihiin markii ay bilaabanaysa doorashadan waa idiin sheegay meeshaan inay tahay akademiya lagu baranayo dimuqraadiyadda iyo isu tanaasulka waan uga mahadcelinaynaa tanaasulkii uu muujiyey insha allahu tacaala waxaa tartami doona labada musharax ee kale ah Abdullahi Ali Idle iyo Dr. Ismaaciil Abdullahi Mahmoud wareegga labaad aadi doona waraaqadaha wareegga labaad ee lagu codayn doono way ka duwan yihiin midab ahaan kuwani waxaan rajaynayaa marka musharaxiinta codkooda dhiibanaya iyagoo ka dhan loo sheego inay tig saari karaan oo keliya labada qaanad ee labada musharax ee soo hartay ee kale Abdullahi Ali Idle iyo Dr. Ismaaciil Abdullahi Mahmoud tii hore 300 la yeeriyay tan waxaa la yeeri doonaa 192 xildhibaan keliya insha Allah tacaala way sahlnaa doontaa waxaan idinka codsanaynaa in la ilaaliyo xasiloonida waxaan idinka codsanaynaa in la ilaaliyo nidaamka iyo sidoo kale habsami socodka doorashada waa maasantiin dadkii tartamay ee haray iyo kuwa jooga waa maasantiin إنجيل عبد الله علي يا دكتور إسماعيل عبد الله محمود أولا أصلا بارتك سالم إن شاء الله تعالى عبد الله الشيخ عبد الرحمن حسين شيخاني أحمد عبدي عبد القادر إسماعيل حسن أحمد وعلي صالح الإمام وعلي التاع عيسى معلم وعلي التاع عبدين حاجي وعلي محمود عبد الناصر آدم
محمد عبد النافع محمد محمود عبد المالك محمد عبد ودير عبد الله الشيخ عبد الناصر محمد محمود الله محمود دكتور عبد اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي 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 دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود دكتور اسماعيل عبد الله محمود عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي عبد الله علي عيلي دكتور اسماعيل عبد الله محمود 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 دكتور اسماعيل عبد الله محمود
دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. 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 عبد الله علي إيدلي. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. عبد الله علي إيدلي. 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 دكتور إسماعيل عبد الله محمود. دكتور إسماعيل عبد الله محمود. ولما مرقنا أصحابي شغلنا عسنا شغل الوداي عبد الله علي عيدلي ووالدي ولد بنسي أدخل ولد بيواي دكتور إسماعيل عبد الله محمود. هذا ومالين وين ومالين تاريخه يكون بيجان تاي أما تاي كو يصدق كبيس جنوري لو كون سعال يطبعا وعمد كوان مهد على سوق ويمكن ليوصل الله سبحانه وتعالى ينوصل تجري سوى أكثر أبروح بدن إن الدورشة ينوصل إلى مركز وحان آديات وما العلمية جدي ماذا حبنا الدورشة بدومية هارون الجامعة السعيو أستاذ كينان أستاذ عبد الفتاح يو أستاذ إذن يسوع كان لمان بعض الأبواب الإنجليزية كي أنت كسر شقيش الدورشة يعني إن يصير تبروح بدن يبدأ عضو UICT جامعة وما ترى برامج كان مساعد كيسة أصيغ كارين قبل كقاطي مركزية وحن سوى كلمة عليا دمان حلوانات شرفت لسيد وناجر بدن دقن نويل كا وبقى قاطين برنامج كيمانتا وعن كلمة عليا دمان مشاركين تي هو ولد الكوات كويس عسيرة يكون كواري
iyo sidoo kale labada musharax ee usoo baxday wareegga dambe sida aan wada ogsoonahay wareegga labaad waxaa usoo gudbay labada musharax ee kale ah Cabdullaahi Cali Iidle iyo Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud labadaasi oo ka soo gudbay wareeggii koowaad waxaa kaloo jiray wareegkoodana ka soo gudbay Ismaaciil Abubakar Usmaan laakiin sababtu naasulay dadka isagoo waqtiga aad iyo aad inoogu beeqaamiyey oo aanu ugu mahadcelinayno waxaa doorashada qaybteeda labaad xildhibaanadii qaar ka mid ah ee cudur daatay oo baxay doorashada wareegga labaad waxaa ka qayb galay oo codeeyey si toosa codkoodiina uu xisaabka galay 179 xildhibaan 179kii cod ee la tiriyey waxay u kala heleen musharaxiinta u taagan gudoomiyaha alumnayga jaamacadda SIU mudane injineer Cabdullaahi Cali Iidle musharax gudoomiyaha alumnay jaamacadda SIU waxa uu helay codad gaaraya 81 cod kuwaas oo u dhigma percentage ahaan 45.3 codadkii la dhiibtay sidoo kale musharax gudoomiye Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud asigana waxa uu helay dhibco gaaraya ama codad gaaraya 98 cod lagu xisaabiyo u dhigma 54.7% codadkii la dhiibtay sidaas darteed anagoo ku hadlaya magaca guddoonka madaxa bannaan ee doorashada alumnayga waxaan caddaynaynaa hortiina ka garaynaa idina markhaati ka tihiin in Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Maxamuud uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee la doortay labada sano ee soo aadan insha Allah taala inta kadib waxaa jira gudoomiye ku-xigeenka oo ay u sharaxneed hal gabar oo kaliya maadaama qof la tartanta la waayey iyadana sidaas ku naqatay bilaa doorasho la'aan gudoomiye ku-xigeen waa gudoomiye Ayaan Muxyidiin Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka alumnayga jaamacadda SIU ee labada sano ee soo aadan waxaan ka raaligelinaynaa dhammaan intii doorashada ay socotay xildhibaanada sharafta leh iyo sidoo kale musharaxiinta wax allaala wixii aysan ku habboonayn wixii qaladaada oo guddiga ka dhacay iyo wixii habsami u socodka doorashada inaga qaldamay dhammaan waa idinka raaligelinaynaa aad iyo aad u mahadsantii waqtiga aad soo hurteen iyo sida wanaagga badan oo aad programka uga qayb qaadateen haddii ay ogolaataan waxaan u yeerayaa oo aan rabaa inay ka soo jeediso waxyar maadaama aysan soo bandhigin qorshe howleedkeeda oo aan iskiin baro gudoomiye ku-xigeenka annagoo u gudbi doono guddoonka ila soo dhaweeya gudoomiye ku-xigeenka alumnayga ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh kuwaasoo maanta waqtigooda u huray inay doortaan gudoomiyaha alumnayga ardayda qalin jebisay dhammaantood waa u mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa guddiga qabanqaabada sidoo kale ayagana waqti ay geliyeen ayagana waa u mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa guddiga borotokoolka oo ayagana waqtigooda u huray sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan dadka igala qayb qaatay ololaha dhammaantood ayagana waa u mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan shaqaalaha jaamacadda SIU waqti badan ma haysano dhammaantood waa mahadsantihiin intay dooratay iyo inta ay dooranba dhammaan waa wada mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم aad baan idin salaamay dhammaan marti sharafta maanta halkan joogto ay ugu horeeyaan bahda jaamacadda SIU laga soo bilaabo gudoomiye ilaa istaafka ugu hooseeya ee jaamacadda maadaama aan waqti aan kusii faahfaahiye aan haysanin halkaas ayaan ka salaamay dhammaantood waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Ayaan Muxyidiin Maxamed Xasan waxaan ka socdaa kulliyadda Arts and Social Science waxaana musharaxiintii isku soo sharaxday gudoomiye ku-xigeenka Association Alumni ardayda ka qalin jebisay jaamacadda SIU
waxaa mahad alla subxaana watacaala ugu celinayaa inkastoo aan jeclaa inaan jaalanti galo oo layla tartamo because of haddana maysan dhicin gabar ama wiil kale oo u tartamo jeclaasi qorshe hooleedka aan qaban doono guddoomiyaha maanta la doortay Dr. Cabdalla oo maanta ku guuleystay xilka aan ka wada shaqeyn doono waxaa ka mid ah hadduu ilaah yidhaahdo inaan ka wada shaqeyno isku xirka ardayda ka qalin jebisay jaamacadda SIU in aan ka howlgalno hadduu ilaah yidhaahdo oo socodsiinta howlaha ardayda ka qalin jebisay jaamacadda dhammaan meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba hadduu ilaah yidhaahdo in aan samayn doono aniga guddoomiyaha maanta la doortay hadduu ilaah yidhaahdo hanaanka ugu wanaagsan ee ay ku wada xiriiri lahaayeen ardayda ka qalin jebisay jaamacadda inaan ka shaqeyno isku keenida ardaydii qalin jebisay iyo kuwa hadda qalin jebinayo haddii uu ilaah yidhaahdo ugu dambeyntii in aan la samayn doono wada tashiyo jaamacadda madaxdeeda sare iyo midowga ardayda qalin jebisay oo aan matalno anaga iyo sidii loo hormarin lahaa howlaha midowga ardayda qalin jebiyaasha jaamacadda SIU hadal badani haanu buusho wixii la dhihi lahaa horaa loo yiri sidaas iyo nabadgelyo asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan maamulka jaamacadda macallimiinta guddiga doorashooyinka guddiga soo qabanqaabiyey marti sharafka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda SIU ka qalin jebiyey dhammaan dhaqaatiirta jaamacadda SIU kulliyadaha dhammaantood waxaan ku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda taxiya xaqiiqatan waa dareemi kartiin waa xil culus listi waxa lagu farxi karo qofku farxi kara xataa maahan waa wax aad u culus in shaqada qabto waa runtiin alumniyuga waa wax aad u adag xaqiiqatan dadka jaamacadda ka qalin jebiyey inaad raadiso ayaa waxay tahay wax qaadanaya wax dhib badan qaadanaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay waan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan asxaabteyda xildhibaanada i doortay kuwaanan i dooran musharaxiinta laba sida loo sami walaalkii cabdullaahi oo dagaal haddana aan galnay dhammaantood waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waan dareemaa inaan xoogaa jaalanji badan dhex maray otherwise jaalanjigu wuxuu kutusaa guusha kutusaa marka haddana laga guuleysay haddana walaalkii cabdullaahi guuleyso same thing aadaan u mahadsantihiin dhammaan dadka asxaabteyda ah khaasatan dhaqaatiirta jaamacadda SIU ee meelo kala duwan ka soo tegey qaarkood shaqa ka soo tegeen macallimiinta iskuullada macallimiinta ka socda kombiyuutarada shaqaalaha isbitaal daynile shaqaalaha dimashaqa hosbitaal in dhammaan agaasimaha dimashaqa hosbitaal dhammaantood waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aadaan uga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane Dr. Ismaaciil Abuukar tartamayaasha oo qofka asagoo ugu soo dhawaa mudane Cabdullaahi Ali Ille labada tartamay kale Ismaaciil Abuukar Cusmaan iyo Ismaaciil Xaaji Ibraahim Qaasim runtii aadaan idinku mahadcelinayaa waxaad muujiseen campaign karti leadership iyo dadaal maanta steepkii koobaad ayaan qaadnay hadda ka hor aad la kaftana kuliyadda caafimaadka horta waa aad u xamaasad badan waxaa dhacay tartan kale oo aniga aan qayb ka ah doorashada qabanqaabinta qabaayan laakiin gudooga musaasaabi qoyskiisa kala joogay waxaan u malaynaya inay 2016 oo malaynaya waxaa kiligu dooranayay ninka la yidhaahdo Cabbaas kuliyadda caafimaadku dhan waa soo urursadeen waxay go-aan ku gaareen dhammaan inay ka qaadaan musharaxiinta kuliyaddan ayaga u badan markasta laakiin hal dhibaataa dhacday markii uu Cabbaas soo baxay kuliyadda caafimaadku sidii la hormaysa nooga shaqeey maadaama hadda qalinjabiyaal tihiin shaqada ugu weyn ee loo dhiibay doctoorka oo mas-uuliyad adaga oo ah isku xirka iyo horumarinta iyo shaqo samaynta iyo jaamacadda kale qaadashada iyo research jaamacadda research programka soo wada waxaasna waxaa laga rabaa inay door muhiim ah oo nafdhabar ka ciyaaraan alumniga jaamacadda markaa shaqooyinkaas dhan u yaalla mas-uuliyadiisu doctoorku uu qaaday dadka raba inay la shaqeeyaan waa idinka weyaan markaa maanta keliya xamaasada inay ku ekaato marab insha allah uu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa la shaqeysan kaas ka sukoo gudoomiyaha waxaan kugula talnay gudoomiyey tiimka hadda kula tartamaya oo leadership usoo istaagay oo la tartamaya haddii aad u fahamto inay suurtagal tahay inay leadershipka ay soo galaan executive-ka inay soo galaan aadan kugula talnay inaad ku darto sababta waxa weeyaan waa tiim u soo diyaargaroobay dad kasoo dhexbaxay inay leadership ay qabtaan
dadaal badan soo muujiyay which means inay u taagan yihiin inay ayaga naftooda wax ka bilaabaan oo booskaaga waa qabsanaya intaas ka sugow gudoomiyaha jaamacaddan salaam kaaga wadaa waxaa dhici doona caleemisaarkii waa dhici doona khamiisada ka u dhici doonaa waxaa rabnaa caleemisaarkaas inaa ka dhigna caleemisaar aad u shidan haddaan afka dhalinyarada ku hadalo caleemisaar aad u shidan dad badan ay ka soo qayb galaan idinkana waxaa rabaa alumnaag inaad shidataan aa rabaa insha allah alumne qaabku noqday ay noqonaysaa waxaa kaloo jira tartamo alumnayaal oo dhacaya jira beriyo jimcaha jaamacada kamid ah magaalada muqdisho alumnaag qabsan horeba u lahayn ay laakiin ku isboonsiin way dooranayaan markaa tartamo badanaa jiray dadaalo badan ama inaan qeyba ka gala ayadan waa beri wada toomay waxaa kaloo rabaa inay kuu sheego ama aan idiin sheegay adiga ayaan inaan idiin sheego maadaama hadda leadershipkaa wadiin jaamacaddu inay diyaar u tahay inay idinla shaqayso xafiisyo si degdeg ah idiin siiso wixii kaloo dhaqaalaha xafiisyada lagu kala socodsiin lahaa facilitieska inay maaragtay ka shaqayso hadday suurtagal noqoto xitaa ninkii inay wanaajiyo waxyaabaha jaamacaddu ay danaynayso si awoodaha jaamacaddu u dhaqay kamid tahay intaas haddaan taas ku dhaafo waxaan rabaa inaan guddiga protocoolka guddiga doorashada oo maanta lafdhabar kuwa ah munaasabadda dhacaysay waxaa weeyaan inaan ii sheegay inaan mahadceliyo idinkana waxaan ka rabaa inay cadaalad u dhacday oo fair elections ay cadaaladdaasaan keliya soo wadnay hadda dhammaadkeedinaan soo gaarnay waxaan rabnaa inaa la shido xafladda facebook adaa loo isticmaalo adduunka hadda facebook isugu soo waro facebook iyo twitter isugu soo waro wax kale hadda lagama shaqeeyo maaragtay marka waxaan rabnaa caawa meel kastoo adduunka ka jirta inaad doorashaasi group photo aan ku galo la isku sawiro qof kasta waajib waxay ku tahay in dadweynaha soomaaliyeed iyo arday jaacadda kala jebisay la wadaago wixii maanta intaan markhaatay ka ahay aad iyo aad aa mahadsantihiin allah idin sharfo soo dhawaada waqtigiina badan aad aad mahadsantihiin